السلام عليكم والسلام جميعا وناكسن جميعا مبارك gabadhana ka hadlaya maanta khalad weyn bay gashay ilaahay ka hawda midhaafo ina yaroo miskiinada 3 jira ayay kaxaysay 2007kii waxay geysay Kenya waxay kusoo samaysay gudniin markaa way iska soo noqotay Soomaalidu iska galaysa wax kasoo iska fududaystaan way iska soo noqotay UK bay kusoo noqotay 2018kii inanteedii oo 16 jira ayaa macallimada Englishka u dhigta ayay u sheegtay arrintii in la soo guday marka gabadhii samada la maray biliska lagu yeeray social service-ka lagu yeeray hadda maxkamad baa ku socota waxay yiraahdeen arrintan waa very serious gabadhan waxa xaqiiqo ah in lagu xukumayo 14 sano because UK gudniinku waa illegal hadda qof kastoo ilmihiisa soo gudaa 14 sano ayaa lagu xukumayaa marka iyada waxay yiraahdeen wuxuu doonayaa charge-ku ama ninka maxkamadda u sareeya inuu tusiyo dadka siday serious arrintan u tahay arrin la yaraysto aan ahayn marka 14 sano baa lagu xukumayaa ilaahay ha u fududeeyo waa waxaanu khalad iyadu gashay ilmo yar oo dhashay oo 3 jir ayay soo guday is her fault waa khalad ay gashay idinku waxaanu kale iska ilaaliya because waxaan waa very serious wax sunnaha ku jira maaha wax diinta islaamka ku jira maaha ina yaro miskiinada in la gudo waxa soo dhibaato loo geysto waa very bad waa horrible thing to do wallahi is awful okay iska ilaaliya waxaan oo kale arrintuuna soo gudina hadaa soo gudana ku soo noqonina de wadanka ma aragtay waa ogtiin waxaanu is illegal in the UK hadda caruurta imka airport-da lagu baaraa waxa lagu soo diray child abuse-ka baa lagu soo diray imka FGM-ka iskuulada waa lagu dhigaa they have to make sure waxaan oo kale inaan caruurta ku dhicin waxay ku oranayaan ilmuhu markuu suuliga galo haddaad aragto ina yaroo suuliga ku raagtay ama aan socon karayn you have to make ina check garayso weeye ma ogtahay marka waxaan oo kale iska ilaaliya insha Allah iyadana I don't know ilaahay wada midhaafo waa iska hooyo ma ogtahay dadku khalad way galaan khalad qof binaadan uu ka dhacaa markastaba ilaahay ha u fududeeyo like she's going jail bay u socotaa hadda ilaahay ha u fududeeyo iyadana idina waxaan oo kale iska ilaaliya waan idin salaamay assalaamu calaykum jimco wanaagsan